kabay horaa wuxuu ahaa dilkaagii la doon laguna farax sida dad gaalaad naftaada u dadaal wacda laan duulla ku rabin haddii la idin kala jecel yahay oo la leeyahay beel hebel baa taageerta ama beel hebel baa naga soo horjeeda sidan uma dhacdeena si kale ahaan lahayd in dabargo'iina iyo dilkiina loo soo tafaxaytay oo la rabo in la idin ka barakiciyo magaaladiina oo la rabo in cirdigiina iyo sharaftiina lagu xadgudbo caddaan weeye taasi idinna waad aqoonsateen fadhiga laga kacan leeyahay ku dhaliili maayo nin dhulbahantaa baa tahay tamari meel walba ha ku dhigtee inaad firigleynaysid amba waan ogahay laakiin systemka Puntland ka jira igu sawirtii aynu isla ogeyn ee aan la soo dhaafi jirin buuro wadal inta teendooyin laga dhisto tuuta bilaash oo igu sawirana la qaato hadday hoosaasintii ka tahay abti fiiladaadii ku noq garow ku taalay maanta wada hadal haddaad hebel soo dirtaan haddaad mid xil idiin haya soo dirtaan 10 daawo la galo darajiya xil lagu raro uma korin darmaantee waxaan duulan u cuskaday madal iyo shir ila daa inaan dood ka oran karo inaan daahan garan karo dibnahayga bari karo in la diidi kara yeel daribtayda malab kale in dugaag ku cuni karo hadallada idinka ayaa hore idinka haynaaye tii aad qaaxa ugu qaxdeen iyo mid ka sii daran waliba idinku waa cararteen leeyahay beesha dhulbahantay ama gobolada Eesasiya kabay horaa wuxuu ahaa dilkaagii la doon laguna farax sida dad gaalaad naftaada u dadaal wacda laan duulla ku rabin dhibaatadan maanta meesha ka dhacaysa mid in badan la soo qorsheeyay wuu ahaa mid dulqaadkeeda iyo nacasnimadeeda iyo eegashadeeda beesheenu iska lahayd ama deegaankeenu lahaa weeye maanta waad aragteen hore haddii la idiin qaybiyey xabadda maanta ka dhacday laascaanood ee maatada lagu xasuuqayaa reer hebel keliya kuma dhicin ama jilib gaara kuma dhicin waxaan u maleynayaa guri dhulbahante oo aan maanta geeridaasi oolin inaanay jirin haddii la idin kala jecel yahay oo la leeyahay beel hebel baa taageerta ama beel hebel baa naga soo horjeeda sidan uma dhacdeena si kale ahaan lahayd in dabargo'iina iyo dilkiina loo soo tafaxaytay oo la rabo in la idin ka barakiciyo magaaladiina oo la rabo in cirdigiina iyo sharaftiina lagu xadgudbo caddaan weeye taasi idinna waad aqoonsateen fadhiga laga kacan leeyahay dadka guduhu hay sabaabuleen ha adkaysteen gobonnimo waa loo dhintaa dhiiga geesigay ku baxdaa dhimashadu ina damqi mayso dhinaca SNMna waxaan leeyahay annagoo halgan iyo dagaal idinka horeynay haddana waxbaanu idinka barannay waxaan nagu filan gabayadii hadraawiye ahaa nin gar iigu dudayo uu dirmaha iigu kala bixin duqaydiyo waxgaradkii cidda ugu da'weynay dumbuq baanu dhiibo mayd bay dul yaalle miyaan geedka damalka adooyeysan karaya maanta wada hadal haddaad hebel soo dirtaan haddaad mid xil idiin haya soo dirtaan 10 daawo la galo darajiya xil lagu raro uma korin darmaantee waxaan duulan u cuskaday madal iyo shir ila daa inaan dood ka oran karo inaan daahan garan karo dibnahayga bari karo in la diidi kara yeel daribtayda malab kale in dugaag ku cuni karo hadallada idinka ayaa hore idinka haynaaye tii aad qaaxa ugu qaxdeen iyo mid ka sii daran waliba idinku waa cararteen annagu aan joogaynaa waxaan leenahay maanta waad noo hiiliseen laakiin nagama aydan guulaysan waad noo hiiliseen oo dadka iyaga waa israaciseen wixii uurkiina ku jiray ayaad ficil u bedesheen diyaar baanu diinnahay haad burhaanakum meeshaynu isugu imanaynaa waa nugaal waraabaha nugaaleedna ninkii dhoof ku yimi baa geeridu dhibaysaa isaga ayaa kala yaqaana ka qariibka ah ee meesha ku dhintay iyo kii dhulka lahaa oo ehelkiisa ahaa dhurwaaga kala garan doona intaasaan idin ku dhaafaya Puntland waxaan leeyahay systemka Puntland kamid baan ahaan jiray laba goor baan wasiir ka soo noqday
arrimaha kaloon halkan oo kale halkaasoo kale iyadoo oo taagan baan goobjoog u ahaa maanta madaxweyne ku-xigeen waxa ka Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waxaan maqlaayay meeriyada waxa laga ma qarinayo waana horaaba loo soo qoray inay u soo baxeen oo dhinaca tukaraq joogaan Axmed oo golaha wasiirada ku wada jiray aqoon iyo shakhsiyan baynu isu leenahay ku dhaliili maayo nin dhul bahantaa baa tahay tamari meel walba ha ku dhigtee inaad firig leynaysid amba waan ogahay laakiin systemka Puntland ka jira igu sawirtii aynu isla ogeyn ee aan la soo dhaafi jirin buuro wadal inta teendooyin laga dhisto tuuta bilaash oo igu sawirana la qaato haday hoosaasintii ka tahay abti fiiladaadii ku noq garow ku taalay inta ayaan iyagana oran lahaa waana idin salaamayaa waxa la inooga baahan yahay waa guul iyo gobonnimo iyo inagoo dadka talada u deeyna ugana dambayna taageeradeena aynu laban laabno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi